dadkiisa baatilka iyo dadkiisu waa iska horjeedi doonaan ilaahay baa saa u xukumay wax dhamaanayana ma taariikhda markaad soo bilowdana ila aadam la abuuray oo sijilliga taariikhda dib u akhrido ila aadam aabuurkii aadam laga bilaabo ila maanta aan soo gaadhno sidaasuu dagaalkaasi u jiray waana jiri doonaa dagaalku marba waji buu leeyahay mar waa askari iyo ciidamo iyo dagaal dhulka ah oo hub la isu isticmaalayo marna waa dagaal thaqaafo maskaxda la isaga duulayo dhaqamada la iska weerarayo akhlaaqda la iska burburinayo dadnimada bulshadu waa dhaqankeeda iyo akhlaaqdeeda la weerarayo waa waxay yidhaahdaan siraacu alxadaaraat ama siraacu thaqaafaat looltanka iyo dagaalka ka dhaxeeya dhaqamada diimaha iyo waxyaalaha aadamuhu haysto muddo dheer ayaa waxaa socday ololaha loogu magacdaray ololihii macatabka oo reer galbeedku ay doonayeen inay dhulalka muslimiinta ku qabsadaan boqolaal sano socday markay guul ka gaari waayeen waxay go'aan ku gaadheen gaar ahaan nin hogaamiyahooda ahayoo la dhihi jiray Luwaysu Taasic marka gacanta muslimiinta uu galay oo la qafaasho la qabsaday oo muddo xabsiga ku jiray kadibna la sii daayay ayuu wuxuu la galbaday fikrad la yiraahdo muslimiintu intay diintooda haystaan lagama adkaan karo maxal haddaan rabno muslimiinta inaan ka adkaano waa inaan ka gallo xagga diintooda iyo akhlaaqdooda halka markaynu kaga adkaano way fududahay markaa dhulkooda in la qabsado iyaga in la qabsado khayraadkooda la boobo sidii la doono laga yeelo laakiin darbiga u baahan inaan jabinno waa diinta ay ku dhagan yihiin waana sirta awoodooda waay saddexdii qarniye u dambeysay reer galbeedka iyo gaalada kaleba waxay ku dadaalayeen muslimiinta in diinta laga burburiyo akhlaaqda laga burburiyo حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي سعيد الخدري والنبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ذو وين معانتهي وين عقارنتهي ووح نفتج الشهي الله تبارك وتعالى ويدين ديبيا وكوا كتغيو كهو إذن كهو الرييبو إذن كبدليا خليف بو إذن كدغيا kadibna wuxuu fiirinayaa bal waxaad samaysaan adduunyada iska jira dumarkana iska jira buu nabigu sallallahu alayhi wasallam dumar dhar qaba hadana qaawan maxaa laga wadaa magac dhar wax leebay qabaan laakiin xaqiiqada dhar ma qabaan waxay culimadu ku fasireen dharkay qabaan baan asturaynin ama wuu gaaban yahay jirkii qaar baa qaawan ama waa xiriiriyo jirku ku dhagahayaa oo sifaynaya ama waa khafiif oo jirka laga arkaya wax mara magaceeda way qabtaa laakiin ma asturna kaasiyaat caariyaat waxaad xusuusan kartaan maalmahan social media wixii dhex yaalay habar wasiirada oo dawladda Soomaaliya ka tirsan oo maxfal meel dhan oo la marayo oo public ah maradii gogosha lagu seexanayay sarwaalkii raggu ay gogosha ku seexanayeen hatta ma sarwaalkii banaanka loogu baxay waa sarwaalkii sariirta ayay la taagan tahay oo isku sawiraysaa markaasay social media soo dhigaysaa hatta inda adayga iyo xishood darrida iyo sirrig la'aantu waxay gaadhay heerkaasay gaadhay حتى الدمر عادية ما وإسلام لحدن شركة وين محاكو هري محاكو هري ودأنا ناد السوقاوين ومحاد رادين إيسان
risaalada ay diraysiyo fariinta ay diraysa habartaasi ma taqaan adiga waa fariin risaalay xambaarsan tahay ma aha bilaash ma aha risaalay xambaarsan tahay barnaamij waay waxyar ka horna mid kale waa tii iyaduna lahayd xeerkii jinsiga iyo kufsiga wadaadaan noo diiday oo ka hor yimid si ay toosh ugu ifiso wadaadaa waxaan diidan yaa diiday ummaddii muslimkaa diiday baarlamaankii baa diiday wadaad cid aan ahayn baa diiday wax urayaad meesha keenteen oo laga yaqyaqsado oo qashin ah raggu ha isguursado dumarkuna ha isguursadeen ninkuna xaaskiisa hadduu u tago waa zino hadduu kufsi baa la yidhaahdaa hadday labadan taata caadi isu oggolaadaanna zina maaha xor weeye way isfuulfuuli karaan waxaasaa intay la shir yimaadeen oo ummaddu maya tidhi bay doonaysaa inay tidhaahdo dhowr wadaad baa noo diiday dhowr wadaad oo kuwa waa madaxdii maxay shareecadu u tidhi war guryihiinna jooga waxaaya wax ka daran baa laga baqayay waxaaya wax ka daran baa laga baqayay caqli iyo cilmi iyo garasho iyo xishood iyo siriig iyo ma jirto amaama albala wala adiga u fiirso bal waxaad isweydiisaa dumarkii soomaalida ahaa markay 50 dhaafaan oo 60 gaadhaan oo ay siyaasad hawaystaan oo baabkaa galaan bal waxaad isweydiisaa maxaa diinta ku diray maxaa diinta shaqo uga dhigay maxaa waxayna garanaynin ay u galayaan maxay qiyamka iyo akhlaaqda ummadda u weerarayaan maxay gaalo iyo qashinkeeda u soo urursanayaan bal isweydii imisa dumara laga qabanayaa diinta ilaah imisa laga qabanayaa na ka joog na xageed u socotaa na maxaad ka hadlaysaa laga celinaya xagee laga celinaya waxaad garan kartaa barnaamijku waa barnaamij ayaga ka sareeya ayaga ka fog waay hal dawlad oo dawladaha reer galbeedka ka mid ah waxay u diyaarisay barnaamijkaasi inuu Soomaaliya ka hirgalo oo qawaaniin laga dhigo intaasoo milyan oo dollar bay u diyaarisay qaar ka midana baxay qaar ka midana ay u diyaariyeen hal dawlad oo Yurub ka mid ah habar wareertay waa la arki jiray ruux dhalinyaro wareerana waa la arki jiray oday wareerana waa la arki jiray laakiin aniga midaan la yaabanaha waxay tahay dadka nooca u wareersan ee qaabka u yaala cidda xil u dhiibatay saddex mid waay in la qasbay oo la yidhi dadka noocaas oo kala xil noogu dhiib oo macnaheedu noqonayo ummadan aad hor joogtay sideedaba taladeeda ummada kala leh mooyee adigu khiyaar ma lihid maye dadka noocan oo kala inaad ummadda hor keento waxoogaa maslaxa abaad dhaafsatay oo taana macnaheedu waxa weeye ummadda mustaqbalkeedii iyo diinteedii iyo akhlaaqdeedii agtaada suuqu yaallaa oo waa iib yaa iga gadanaya tasaddexaadi waxa weeye dadka noocan oo kaliya barnaamijtay wataan baabad waafaqsan tahay oo waaba kula quman tahay saddex khiyaar oo midba midka kale ka xun yahay waay diinta islaamka waa nasteexa wararka ay sheegayaan maalmahan annaga ugama qaadanayno inay nasteexadii diinta ay wax ku sheegayaan kow waxay ka hadleen surwaal waxay og yihiin ummadda Soomaaliyeedna og tahay iska dhaaf dumarka Soomaaliyeed yar iyo weyn inta surwaal xiran oo golayaasha dawladda iyo hay'adaha dawladda ka shaqeeya la cadad wala xisaab dunida muslimka marwooyinka ugu sareeya ayaana saraawiish xiran surwaalka shalay laga hadlay kama duwana saraawiisha shirka 5 September la qabtay
wuxuu ahaa haweenka nabadda iyo amniga mana ahayn shir looga hadlayo xadgudubka jinsiga taasoo lagu dhaleecaynayo hoggaanka ugu sarreeya haweenka Soomaaliyeed gudoomiye ku-xigeenka koobaad hogaamiyaha siyaasadda beeshayda aqlabiyadda baarlamaanka madam Sacdiya Yaasiin Xaaji Samantar waxaan ka qaadan lahayn hadday nasteexad tahay laakiin uma aragna nasteexo magaca culimada Soomaaliyeed ayagoo sheeganaya kama hadlin ilmihii iyo waalidkii iyo dadkii guryahooda iyo ayagaba la isku gubay caruur Soomaaliyeed oo jawaano ku guran ayagoo la gubay inay arkayeenna jimcayaasha kama aysan hadlin qololkana uguma aysan hadlin ay ka qayliyaan habeenkii ceelasha dad iyo dunya ay ka cabaan oo la gubo kama hadlaan gabdhaha Soomaaliyeed 3 jirka ah iyo 5 jirka ay gudoomiyaha sheegtay iyo kuwa 11 jirka ah oo tacdiyada loo geystay kuwa la jarjaray oo digsiyo lagu daboolay kuwa la dabaqyo laga tuuray iyo kuwa inta la soo tacadi lagu sameeyay haddana waalidkood ayagoo meydkoodii la duugay ay dib u arkeen oo jarjaran intaba kama aysan hadlin culimadeen sida aan sheegay oo ku celinayo way badan yihiin dumarka hay'adaha dawladda ku jira saraawiishooda wayna badan yihiin kuwa caalamka islaamka madaxda ka ah oo madaxweynayaashu qabaan oo saraawiishooda kuwa madaxda ah oo hoggaanka dalka ugu sareeyana maanta aan haysan diinta islaamka nasteexada marka laga hadlaayana qaraabada iyo ehelka hoosa laga bilaabo kuwa xad ka gudbay oo ehel iyo qaraabo ay ahaayeen jira oo diintana xaga u dhaaf waligood nasteexo hoose iyo mid kor ayagoo siinayana lama arki ma waxay is yiraahdeen madam Sacdiya gudoomiyaheeyo iyo Khadiija Maxamed Diiri 0.5 waayo culimo nasteexaysa dadkoodu ma laha diintu say 4.5 man horta ka bilaaba kuwiina xadkii gooyay annagana nasteexan noo muujiyo oo ubadkeena la gubay iyo hooyooyinkeena iyo ceelashana la ka duugay ee dad iyo dunya shacabka Soomaaliyeed oo dhan maanta u taagan yahay ka hadla hadaa diin ka hadlaysa kacdoonka shacabka argagixisada ka hadla hadaydan idinku kamid ahayn kuwa baa dhawaaq idinka rabo kuwa baa la rabaa inaad ku garab istaagtaan dagaalada dawladda iyo dadka Soomaaliyeed ay maanta ku jiraan yaareed inaad fahmi kartaan wax badan oo ummadda Soomaaliyeed maanta ay fahmayso idinkaan idin nasteexaynay aw xirsiga qololka ka qayliyo iyo shiiqa masaajidada ka hadlayo nasteexa hadaad rabtaan idinkaan nasteexa u baa waan ku celinayaa haddii cidi loo nasteexaynaya idinkaa u baahan nasteex mararka qaarkood waxaan isiri Sheekh Umar wuxuu afka u furtay hadda ka hor buu yiri anoo wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga ah isagoo lacag soo qaaday dawladdan u wada dhahay waa halkan yimid muxaadaraan ku qabanaya buu yiri wasiirka dhalinyarada iyo isboortigan ah maalintuu yiri muxaadaraan ka qabanaya dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan baa ooynaysay aaskii almaas elmanu aha ma u garanaynin taasaan u baajiyay oo dawladdana aan dib ugu celiyay inaan maalinta baroorta dhalinyarada Soomaaliyeed aan dacsigaaga lagu soo beegin ilaa aan meydka ka aasano way duuban tahay meel kastana way ku jirtaa kuma bedelan kartid Khadiija surwaal wadata surwaalku waa baday diintan waxba uma dhimo labo kugu nasteexaynaa habar baatir cawo iyo maalin salaad kasto aan dukado ilaahay waxaan ka baryaa cimri dheer iyo caafimaad habarnimadu waa darajo Allah subhanahu wa ta'ala
ayaana ugu mahadiyaa oo habar dhaaftaan ahayo ayeeyaan ah abuulan baanu ku sii socdaa habarnimadu faan iyo ammaan bay ii tahay aan ku nasteexeeye dib ugu noqo waxa ummadda Soomaaliyeed ka sugayo cilmiga Ilaahay ku baray waxaan filayaa inuu laa yanfac yahay waxba kuma tarin hadduu wax ku taro nasteexada meesha jirtaad aadi lahayd wabillahi tawfiiq